ها السلام عليكم وأنا soo salaamo qaraabo sidee tihiin ani bocorkii banaankan joognaa new video aad soo saarona insha Allah oo ku saabsan marka ay abaarta ay jirto so don't forget to subscribe to YouTube beertayda Somali Garden insha Allah waxaan isticmaalayaa alqalab cusub labadaas baca ujeedin ma arkino abaar markay jirto you have to use ways to save water. السلام عليكم قرابة وسلامتهين ملل بقى جوكتان كسر دواد بيرتيدا channel كي وحو كسابسين يا غوريغا بيرتيسا هادرتان وقتي المغرب ونغوصو نقدا I hope إنو لايتك ونغو حمان فيديو مانتو وحو كسابسين يا هاللوضاس باع أو عقاركا oo geedaha sida aan hadeertan ku wareejiyay insha Allah maalmahaneet waxa ku jirnaa drought mis abaara ku jirnaa roob badan ma noo da'in soo danta waxay nagu kalifaysaa in aan ka taxadirno sidaan banaanka biyaha aan u isticmaaleyno especially marka beer aan leedahay maanta dhan waxa harta in la kor taagnaatid beerta aad waraabisid magaalada aad deganahay anaka 5 to 10 minutes aan Minneapolis u deganahay aan daris lanahay and our mayors waxay noo dhaheen rule ay soo sameeyeen ay dhahayaan yaa la isticmaalina oo bis biyaha banaanka yaa lagu qasaarinina especially dadka ma arkana maanta in cooskooda rabaan in uu qoyo oo beerta qurux u ahaato banaanka le baanta dhan biyo ku isticmaalayaan rule waxay sameeyeen ay dhahayaan banaanka biyo yaa lagu beer dareenin waqtiyada ay tahay from let's say 12 p.m. duhurkii to 6 p.m. casirkii maqribka meelahaas markii la gaaro so waa waqtigaasaytana waxaa waqtiga ee hawada zaid oo kulushahay so waqtiyada hadeertaan maqribka camal ay noo soo tahay waxaan la ogol yahay in banaanka aan biyo u isticmaalno beerta aan waraabsano geedaha aan waraabino so markii ay abaarta noocan camal ay jirto waxyaalo badan oo dab keenayaan jiraan oo hadeertaan gobolka aan deganahay Minnesota jack ka socdaan all the way from Canada so anyways waxaa maanta iyaalo hal qalab araba in isticmaalo oo geedaha hadeertaan oo laba tufaaxa ay beeran iyo one peach tree iyo one cherry tree a total of 5 trees ay beeran hadeertaan geedahana waa ogtihiin amalena marka biyo asiinaysid they need a little bit more consistent large watering so meesha hal mar biyo badan aan ku shubi lahay geedka maanta isticmaalaya waxay tahay boorso camal waaye boorso ama arkino geedka aan ku wareejinayo boorsadana zip ay leedahay so labada dhinac is qabanaysaa kabacdi markaas korkeeda aan biyo uga shubaayo boos yar waxay leedahay a little pocket aan biyaha uga shubaayo insha Allah kabacdi boorsada ma arkina markaan biyaha ka si fiican ugu buuxiyo way istaagaysaa geedkana kuma tiirsanayso so insha Allah hoosteedii meesha carrada ay ku fadhiso waxay leedahay laba duleel oo biyihii dhibicdaasayte it takes a long time but it's important because biyihi hal mar kuma gambinayo meeshii kama dhaqaaqay it takes a long time carradaasayte si fiican u qoynaysaa so that saves me a lot of water in my city insha Allah so let me show you hadeertaan meeshaanayta sidaan ugu tagargareenayo geedaha maalmahaanaytan si fiican uma waraabinayno wallahi qaarkood waxay u egyihiin inay rafaad ay ku jiraan biyo u baahan yihiin boorsadaanaytan insha Allah for over 1 week dhan biyo ma siinayay maybe even longer so let me show you seconds sida u eg tahay don't forget to subscribe give me a like insha Allah let's start gardening.
markaan biyaha ka buuxiyo sidaana way kaanaysaa maasha allah waxaa muhiim ah geedkaneeta waa zaid u yar yahay waxaa muhiim ah I don't know it's very dark ina arki karin in biyihii caaga bacda ku jira inay geedka ku liin gareenin so it's very very good zipkana waa kana haddaa furo kasto بسم الله يا محادب كان كاني يا ربي سلام okay anyways it's hopefully it's very easy in انحره let me try هيي والله مسحر دونان okay maybe this was a bad idea انا بعد زبك فرين ما لقي رمين لكن Two hours later. So meeshaan waa ogtihiin qarraha ka soo socda maasha allah qarrahaasaytan update aan isiin doonaa maybe the video oo aan axadda soo saari doona amuu yahay meeshaanaytana tomatoes ka guranaya maasha allah maalmahan bocorkoo kaleetaa soo baxa war meeshaanayta wallaahi bocor kama waayi ilaahay amarkiisa halkii maalin aad sii jeesto bocor kaleetaa soo socdo bocorkeema kii kaluu ka daran yahay bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahi raxmaan day I think jimcada ma ahayd mise khamiista videoga soo saaraya labo dameer la ega labo waaweyn soo bixiyay sameeshaanaytan weli waa tuurin yihiin alxamdulillah meeshaan biyaha ka soo bixi doonaan insha Allah dhinacaan iyo dhinaca kale uga taalaa kana meeshaan uu ka soo baxaa hadda labada geedood boorsada sidaan way kaanaysaa insha Allah ما شاء الله اوكي قرابه فيديو meeshan ku soo koobeyna insha Allah bocorkaaneta aan ma arkino beerta aan ka soo saaray aan insha Allah jikada geen doona maybe Monday the Tuesday the video ka soo saari doona sidaan u karsanayno I don't know how to do it laakiin gabadh walaashay xidhaad recipe ahaya taasa insha Allah tijaabinayna and alhamdulillah ilaahay wax khayr qaba nooga dhigo I know a lot of places in the world abaar ka jirto mis you know drought ka jirto roob badan maalmahan ma diin so insha Allah roobka markuu deeyna meel badan waxa jiraan dab u bilaabanayo so meelahaas dadaad degantihiin ilaahay hani badbaadiyo insha Allah
and qaraabo, don't forget to subscribe, give me a like, wa inoo maalin kaleeto mac salaama.